ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى waxaa noo furmaya barnaamijkeena noo furmaya waxyar waxaan rabaa inaan maartay ishaan ka hadlo ujeedada maartay isha xafladda si ay qof walba u fahmaan ujeedada xafladda maanta loo qabanayo waxa waaye iyadoo la soo gabagabeynayo tarmiinkii macnaha waxbarasho ee socday hosti tarmiinkii ama koorsadii bilaabatay bishii 8aad 25teedii ayaa maanta la soo xiray ujeedada guud waa taas halkaana waxaa fadhiya dhammaan ka qayb qaatayaasha Tayo Studio Circle ayaa maanta goobta loo fadhiya iyagoo maanta u kala fadhiyay waliba laba magac ku maartay sheeg aan ay jiri doonaan sidoo kale tartan aqooneed maalan doonayno inaan aqoonta kor ugu qaadno oo aan macnaha ay sheeg aan u sameeyno wax la yiraahdo for build aan u noqono bulshada ku degan magaalada Buurlaya anagoo doonayna waxaan rabnaa hadii la yiraahdo inaan maartay sheeg tartaaqo aan qabano xafladana ma aha markii koowaad oo la qabto waa markii tusaalaad waxaan dhigi karaa waa markii 9aad ama waa tarmiinkii 9aad oo la xiraayo goorta la bilaabayna waxa waaye ii sheegeen Tayo Studio Circle-na waxay kamid noqon doontaa su'aalaha maanta la isweydiin doono ma raba inaan hor dhaco marka waxaan leeyahay kulligiin waa maadsantiin waana maartay ii sheeg ku soo dhawaada waxaan kaloo sidoo kale ii sheeg aan leeyahay ii sheeg ku soo dhawaada bahda saxaafadda ii sheegtay Somali Channel iyo sidoo kale ii sheeg suxufigeena ii sheeg Xasan Liishe oo isagana website-ka nooga ka isha codka Muqdisho iyaguna sidoo kale waxaan ku leeyahay ku soo dhawow inta aan ka bacdi waxaan rabaa inaan maartay isha aan sii furano xafladeena iyadoo maanta isha qaybo badan oo muhiim ah oo maartay farxadna gali doona ay macnaha ay yeelan doonto hadii ilaa yiraahdo marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa hadii ilaa yiraahdo isha waxaan fiirsan doonaa filmo yar oo gaaban ayaan fiirsan doonaa filmadaas markii aan fiirsano wax yar ka bacdin haddana waxaan bilaaban doonaa barnaamijka Kedis aqooneedka ayaa bilaaban doona hadii ilaa yiraahdo oo warqadahaas ku qoran waxa la isweydiin doonaa 20 su'aalood ayaa la isweydiin doonaa waxay ila tahay 20 su'aalood in maartay ii sheeg ay qolam uu laartay la kici doonto ama maartay ay dhinac wala dhici doonto diilaar guusha maanta qoladii guusha qaadana waxa way ii sheeg diilaar barnaamijka gabagabadiisa waxaan guddoonsiin doonaa hadiyad qaali aan guddoonsiin doonaa sidoo kale waxa baa meeshan waaye agma dhiga waxa noo joogo sidoo kale abi shoodinka ka bilaabay magaalada Buurlaya ninkii ugu horeeyay sidoo kale waxa way ii sheeg Fanax noo jooga Maxamed Fanax marka ii sheeg rag badan maartay ii sheeg jooga marka anagoo xushmeynayna maanta baada Tayo Studio waxaan leeyahay martiyan leeyahay waxaan rajeey doonaa si qurux badan inuu maartay barnaamijku u dhici doono hadii la yiraahdo oo sacabka aan wada wadaagi doono insha Allah taala hadii la yiraahdo kala macnaha waxa ii sheeg waa barnaamij ku hawlan waxbarashada dhinaca ii sheeg tusaalahan barashada gaadiidka barashada luqadda Swedish-ka iyo waliba sida meesha noogu muuqata Samuel orienteering iyadoo aan casharadaas alla bixiyo maalmaha qamiista ilaa iyo ii sheeg ahadda circle-kaas aad u jeedin ama studio circle-kaas waxa ka qayb qaadata tiro gaaraysa ilaa iyo qiyaastii 70 ilaa 80 qofood ayaa ka qayb qaadata oo dhammaantood wada fogsana oo dad qaan gaar ah run ahaantii waxaana ka baxday waqtiga hadda ii sheeg hosti tarmiinkan kaliya waxa ka qalin jibisay oo lagu farxi karaa tiro gaaraysa 35 qofood ayaa maartay ii sheeg وانا إلهي مهديس أرنتاسنا معنا أي شيء أما سيدا هوشها سودعيسو إلهي مهد كله وأن إلهي أنا وقوم أدعلنا سيدا وكله وحن وقوم أدعلنا يا كقيب قاتياش برنامج كتايو ستوديو سيركل يقوم معنا أي شيء مركز معنا حل إسكسارة أما إسكحل قامة قابوناقة أما شرفت أي مارت أي شيء أي وقصو قيب قاتا أما سيدا إسكو حشميان سيدا أدميشو وقود وجدين وحن هالكوديك هانو سوق هذاني كولتور كونسكوب iyo waxa la yiraahdo kafalitet waa barnaamijka macnaha ii sheeg aan runaantii meesha aan ku hayno taasna macnaha waxa la rabaa adinka ayaa marqaati ka noqon kartiin iyo maartay ama dadweynaha hadii ay tahay wax kuntuurkitaan ama wax been oo maartay aan iska camiranayna hadii ay tahay sidaad ogtihiin barnaamijkan waxa uu sheeg muddadii uu socday waxa aan dhiirigelin u sameeynay dadka luqadda ku hadla afka Soomaaliga ee degan wadanka Sweden
waxa aan macnaha sida aan ugu dhiirigelina waxa weeye iyadoo aan isku dayno inaan u duubno afkooda macnaha ama afkeena hooye aan ku duubno cajalado aad ogtihiin ilaa maalma ilaa corona laga dhagaysto taasoo macnaha dhiirigelin weyn u samaysay dad gaaraya qiyaastii sheeg aan dhihi karo dadka Soomaaliyeed oo degan oo dhan ii sheeg oo qiyaastii 50 dad gaaraya inay macnaha ay hamiyeen inay macnaha ii sheeg ay bartaan ama ay isku dayaan sidii ay ku soo qaada lahaayeen ii sheeg laysinka arrintaasuna waxaan dhihi karnaa waa arrin aad iyo aad farxad u leh midda kale waxa aan rabaa inay aan meesha ka cadeeyo Tay Studio Circle waa barnaamijkii ugu horeeyay ama waa hadafkii ugu horeeyay oo bilaaba in la barto theory-ga la barto annaga soo hindisnay arrintaasna waa arrin lagu farxo waaye waa isla fahna Soomaa waa waxyaabaha maartay aan ku faani karno waaye barnaamijkan waxa aan hoos ugu qoran markaad hoos u fiiriso Soomaaliska veeg in Isbaaniska samhelle haddii aan macnaha aan waa wadadii aan macnaha ishay oo macnaheedu ay tahay wadada aan maartay ishay ama Swedishkan ama samheelkan aan kula qabsan karno sababtoo waa loo baahan yahay wadankeena sida ogtiin 22 sano uu dagaal ka socday ama 23 sano ama 21 sano waxa way ishay burbur badan iyo dhibaato badan aan soo aragnay waxaan rabnaa inaan bulshada meeshaan deganna aan maartay aan la qabsano oo aan la shaqeysano oo aan ku noolaano si nabadgelyo oo qurux badan arrintaasuna waxa way ishay annaga dhan ay mas'uuliyad maartay ishay waa mas'uuliyadna waa saaran waana kulligiina waana macnaha waa dareensantihiin inay macnaha ishay arrintaas ay fulayso midda kale ishay ujeedada hadafka maartay isheeg circle-kan maartay loo sameeyo ma aha in maartay isheeg hawl ganacsi ama ganacsi laga raadinayo ma aha arrintaas marqaati ka noqon kartiin sababtoo waad ogtihiin meelo dhaadheer inta loo aada lacagna la bixiyaa markii la doonayo in maartay isheeg ama laysinka la qaato ama luqadda Swedishka la barto waad ogtihiin laakiin anagu waxaan dhahnay waa inaan macnaha lugaheena aan isku taagnaa oo aan maartay isheeg anagu aan isku filnaanaa anagoo aan macnaha wax bidraaga ama wax kaalma ama aan kamuunka aanan weydiisanayn arrintaasna waxaan dhihi karaa waa wax lagu farxo adinkaana ku mahadsan ka qayb qaatayaasha aad iyo aad sababtoo waxa way waa wax muhiim ah hadii aan waa inaan ku waana qaadanaa oon fiirinaa qaabka ay wax u socod jireen ama qaabkii maartay ii sheeg waa inaan macnaha aad fiirisaa sidee wax u dhici jireen waa inaan macnaha aan maartay aan fiirinaa haddii ay Tay Studio Circle qiyaastii waxay ku dhowdahay 5 sano ay ku dhowdahay ma soco kartaa macquul ma tahay haddii aan maartay ii sheeg aan dhaano waxaan doonbaynaa waxa imaanaysa inaan maartay anagu isqilqilaafno oo macnaha kalsooni darra ay dhacdo waad u jeedin macnaha kalsoonida meesha ka muuqata ama kalsoonida aad macnaha aad noo haysiin waana wax maartay aan ku wada faraxsanahay waxa aan rajeynayaa in barnaamijkan si qurux badan uu sii socod doono hadii Ilaahay yiraahdo ay sheeg hadii Ilaahay yiraahdo oo dad kale oo badan oo naga dambeeyay ay maartay ii sheeg ay sidoo kale qaad doonaan waxa loo qabanayo waxa way waa in laga masayraa xaqiiqda dhabta taas way markaan isu sheegno runta oo haddana waan cadeynaynaa waa in laga masayraa oo ay ka masayraan kuwa maartay ii sheeg magaalada nala degan kuwa magaalada hareeraheeda degan gobolka Doolana degan kuwa Isfeeriya nala degan ma fahanteen inay ka masayraan oo ay dhahan Soomaalida Buuleeye waa Soomaali aad u wanaagsan waa Soomaali maartay ii sheeg wax baranaysa waa Soomaali isjecel oo iskaraameynaysa oo is-sharfaysa inayna dhahan arna ujeedada aan ka leenahay taas way sababtoo waxa way sheeg qof kasta oo lacag u helaa waa shaqaystaa maartay ii sheeg wax maartay ii sheeg ama baahi nama hayso alxamdulillah Ilaahay baa naga koriyay taas marka hadii la yiraahdo barnaamijkeena hore u sii socod doonaa mar dhowna waxaan noo furmi doona waxaan leeyahay mar sidoo kale ku soo dhawaada halkan waxaan noo fadhiya Xuseen iyo Maxamed oo ah ii sheeg qaban qaabiyaashii ama dadkii maartay ii sheeg xafladan gacanta weyn ka geystay labada wiil oo meesha noo fadhiya waxa waaye ii sheeg waxaan leenahay hambalyo waxaan rabaa inaan u sacbino ujeedada aan ugu sacbinaynana waxa waaye hadafkeena waxa waaye Soomaaliya waxay qabtaa dhibaato ama waxa ka jira dhibaato waxbarasho la'aan ka jirta soo ma run ahaantii waqti xaadir xogaa nabadgelyadu way soo fiicnaanaysaa laakiin baahi waxa jirta sheeg baahi waxbarashaan qabnaa waxa la rabaa ii sheeg wadanka dad noqdo injineero dad noqdo maartay ii sheeg dhakhaatiir dad noqdo ii sheeg sharciga gaadiidka kuwa wax ka saxa waxa soo dhan waa u baahanahay soo ma waxaan noqon doono oo hawshaas qaban doona waa u waxa noo soo baxaya way marka waxa la labadan wiil u jeedin ii sheeg waxay dhigtaan dugsiga sare dhigtaan ninka la yiraahdo ii sheeg Xuseen waxa uu dhigtaa hooga gimnaasiyad ay dhigtaa ii sheeg ninka la yiraahdo Maxamed wuxuu dhigtaa Erikslund buu dhigtaa ama gimnaasiyad waa isla fahna Soomaa waa wax lagu farxo waxay soo kalaareeyeen dhinacii waxbarashada isla markaasna waxay u soo jeesteen inay laysinka qaataan laysinkina waa ay soo qaateen sidoo kale aad yaad waad noo fadhi doontiin wax yar waxa noo bilaabo doona ii sheeg barnaamijka tartan aqooneedka ayaa si toos ah ugu bilaabo doona
haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inaan maarata isheeg telefoonada aan maarata aan la isticmaalin mobilada aan la isticmaalin oo aan mobilada laga fiirin haddii ilaa yidhaahdo sababtoo ah waxa waaye qof kasta waxaan ka codsanaynaa mobilka inuu iska damiyo adigoo macnaha isheeg ka qayb qaadanaya dhinaca maarata isheeg haddii ilaa barnaamijka geedi socodkiisa adigoo intaas nagu karaameynaya barnaamijka qaybaha ugu dambeeya waxaan bixi doonaa haddii ilaa yidhahdo isheeg hadiyadaan bixi doonaa waxaa sidoo kale noo isheeg fanax iyo odayaalba noo joogaan maarata iyagana ku casuumi doonaa haddii ilaa yidhahdo iyo mursal iyo marka haddii ilaa yidhahdo waxaan bilaabaynaa barnaamijka kadiska waxaana noo faartay isheeg guddiga noogu fadhiya haddii ilaa yidhahdo cusmaan dhegnaas oo ka tirsantay studio circle yuusuf isagoo watay studio circle kasatan oo macnaha isheeg dad gacan weyn ka geysta ah iyo sidoo kale wacays oo isaguna tay studio circle ka tirsan oo iyaguna oo macnaha aan kasoo xulnay qaybaha maarata isheeg labada kooxood aan kasoo xulnay marka waxa waaye isheeg waxaan rabinaa markii su-aasha iyaga isheeg waqtiga qoladii hadduu ka dhaco waan wareejinaynaa haddii aad jawaab weydiin fadlan waxaan ka codsanaynaa inaan hadal badan ima shanqar badan aysan dhicin oo aan macnaha adiga laftigaaga su-aasha aan lagaa xadin su-aasha koowaad waxaa iskale kooxda horseed waxaad sheegtaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada uu ku dhashay iyo sanadkii uu dhashay taariikhda miilaadiga may taarikhda miilaadiga ciise dabadii waan ku celiyo mar kale kooxda horseed waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa taariikhda uu dhashay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada uu ku dhashay iyo taariikhda uu dhashay bismillaah magacayga waa naciime axmed waxaan u tartamayaa kooxda horseed nabiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaam taya studio circle nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay 571 miilaadiyada wuxuu ku dhashay maka 571 بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقة waa شريف جامع علي kooxda kooxda heegan tayo studio circle nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu dhashay rabiicul awal sanadka koobaad milaadiyada wuxuuna ku dhashay magaalada maka waxaan ku wareejinaynaa guddigaan ku wareejinaynaa iyagaa macnaha dhamaystiri doona jawaabtoo dhamaystira sheegi doona ka bacdi kooxdii sheegtana iyagaa macnada ii sheeg asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu anigoo ku hadlaayo guddiga afkooda su-aashaasi marka hore waxaa la weydiiyey kooxda horseed nasiib darro way soo dhaaftay kadibna waxaa loo wareejiyey kooxda heegan ayakana sidoo kale way soo gudubtay su-aasha waxay ahayd waxaad sheegtaa nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam magaalada uu ku dhashay iyo sanadkii uu dhashay weliba waxaa waaye sanadka miilaadiga sababtoo ah hijriga xilligaas ma uusan bilaabin hijriga wuxuu bilowday dhalashadii nabiga kadib sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku dhashay magaalada maka sanadkan wuxuu ahaa 570kii taariikhda miilaadiga marka jawaab saasay noqonaysaa shanqartaa laga ilaaliyo si barnaamijku si qurux badan uu sii socdo adigoo raalliya su-aasha labaad waxaa la weydiinayaa kooxda heegan goorma ayuu geeriyooday nebigeenna calayhi salaatu wasalaam meeshii iyo sanadkii sidii hadda loo jawaab loo sheego kale بسم الله magacayga waxa la علي sheekh doon kulmiye waxaan ka tirsanahay kooxda heegan waxaan ku hadlayaa magaca studio circle nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhintay magaalada madiina wuxuuna dhintay 632 su-aasha saddexaad waxaa la weydiinayaa kooxda horseed waa su-aal iyaduna diiniya waxaad sheegtaa magaca nebigeenna hooyadiis calayhi salaatu wasalaam kooxda horseed nabi maxamed bashiir shido magac nabi maxamed hooyis
صلى الله عليه وسلم هذا مدينة بنت وهب آمنة بنت وهب عن آمنة بنت وهب بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرحمن حسين عدو أنا ku hadlaya taya studio sirka kooxda heegan horseed kooxda heegan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadiis waxaa la yiraahdaa aamina bintu wahbin sidoo kale hore uga socono su-aasha afaraad waxaa iskale oo la weydiinayaa kooxda heegan taya studio circle waa su-aal diiniya sidoo kale sheeg caruurta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta wiil ay ahaayeen iyo inta gabdhood ay ahaayeen kooxda magaceeda بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد إسحاق أنا أترتمايا كوحدة هيغن تيا ستودي سيكل نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولاد ديسا واتوضبا صدح أيا رقهيد أفرن قبل أيهد ما شاء الله وآديات su-aalaha diiniga waxaa loo soo qaatay waa dareemi kartaan ujeedadu waxa waaye inaan xusno maadaama dad muslima aan nahay boqolkiiba boqol dad muslima maadaama aan nahay su-aaluhu weli way sii socdaan haddana waxaa iskale waxaa ku leeya kooxda horseed ayaan weydiinayaa waana su-aasha shanaad waxaad sheegtaa waddanka ugu dhulka weyn qaaradda africa aan isla socono afar alternative ayaan sheegayaa afarta alternative kala dooro oo ka dooro o Chad b Sudan c Congo d Algeria بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي يا حمد محمود أحمد ونطرت معي كوحد هرسات ودنك السودان kooxdaasu ma garan hadalka yaray waan wareejinaynaa waxaa jawaabaya أحمد عثمان صلاة أنا مقع والله كوحدة هيجن تيو استوديو سكت جوابته وحوي الجيريا qaaradda africa markii hore waxaa ugu dhul weynayd suudaan laakiin suudaan laba ayay u kala gooday sidaa darteed ayay waxa maaragtay ishay khadka uga baxday meeshana waxaa iska qaatay markaan weyninka Algeria dhibcaaska ilaaliya su-aasha lixaad sidoo kale waxaa iskale kooxda heegan taya studio circle waxaad sheegtaa waddanka leh xeebta ugu dheer qaaradda africa ka dooro qodobadan mid ka mid ah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد حسين عبد waxaan u tartamay kooxda heegan tay studio circle wadanka ugu xeebta dheer Africa South Africa waa aad iyo aad u mahadsan yahay waana ka jawaabay si sax ah ugu jawaabay okay waxaan ka codsanayaa in maartay shanqarta la yaray codsi waay fadlan waxaan ka codsanayaa tiro aad u fiican badan meesha ku fadhinaa waxaan ka codsanayaa inaad shabaqa yareydaan fadlan oo qof kasta uu qaado mas'uuliyad uu qaado sida aan ku ballanay okay waxaan ku u leexanaynaa markaana kooxda horseed su-aasha 7 waa su-aal ka timid adduunka kale oo social ah sheeg ninka ugu dheer adduunka magaciisa iyo waddanka uu ka soo jeedo
sheeg ninka ugu dheer adduunka iyo magaciisa iyo waddanka uu ka soo jeedo. kooxda horseed ayay su-aashu taagan tahay. cabdisalaan xasan warsame u tartamaya kooxda heegan circle waxaa la yidhahdaa magaciisa sultaan wuxuu u dhashay magacayga waa cabdisalaan xasan warsame waxaan u tartamaya kooxda horseed tayo circle studio circle ninka magaciisa waxaa la yidhahdaa sultaan wuxuu u dhashay turka. sidoo kale su-aasha 8aad waxaa iskale kooxda heegan oo iyaduna sidoo kale su-aal sooshiyaala ama lamid ah oo barbardhac la ah. waxaad sheegtaa ninka ugu buuran adduunka magaciisa iyo waddanka uu ka soo jeedo. kooxda horseed su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxaan u malaynaa inaan haaf ka haleelo sacuudi waaye laakiin magaciisa ma haya. bismillahi raxmaan raxiim ninka ugu buuran adduunka magaciisa waxaa la yidhahdaa manuel orje wuxuuna ka soo jeedaa waddanka mexico 500 kilogram wey. waa mahadsan tahay. barnaamijku weli si qurux badan u socdaa, su-aaluhu ma dhammaanin, dhibcahana waa naloo qorayaa. su-aashii sagaalaad miyeed maya waxaa weye su-aasha sagaalaad waa su-aal ku saabsan meesha aan degannahay. sheeg waxaana la weydiinayaa kooxda horseed. sheeg gobolkan doolana 10 kamuun oo ka mid ah. sheeg gobolkan doolana oo aan degannahay 10 kamuun oo ka mid ah. magacayga waa bishaar cali horseed ayaan u tartamay studio circle gobolkan doolana 10 degmo oo ka mid ah waa sida tan Boolenge, Faaluun, Ludwika, Smedjebacken, Onesh, Mura, Setter, Vageshta, Naima. بشير مشيقين بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد حسين عبد waxaan tartamaa kooxda heegan haddaan isku dayo 10 kamuun oo gobolka doolana ka mid ah Faaluun, Buurlenge, Ludwika, Setter, Ovesta, Redvika, Mura, Smedjebacken iyo Hedmura. waa mahadsan yahay maxamed waa uu dadaalay laakiin ma garan waxaana nooga jawaabi doona guddigaan u gudbinaynaa. su-aasha waxay u dhacaysa sida tan sheeg gobolkan doolani 10 kamuun oo ka mid ah 10 kamuun oo ka mid ah waxay yihiin Faaluun, Buurlenge, Setter, Hedmura, Ovest, Redvik, Lexand, Mura, Maalung, Finisburo, Gegnef. saas su-aasheen su-aasha 10aad oo isla mid ah iyaduna sidoo kale su-aalna qusaysa gobolkeenan doolana waxaa iskale kooxda heegan. waxaad sheegtaa bishii la aas-aasay tayo studio circle iyo sanadkii maalintii maaha bishii iyo sanadkii la aas-aasay tayo studio circle. u tartamayaa kooxda heegan tayo studio circle waxaa la aas-aasay 2010 bishii 2. cabdikariim si saxa uga jawaabay bishii Febraayo maalintu waxay ahayd. su-aal aad u qosol badan ood wada qosli doontaan markaan may waa taas 12aad midda aad loo wada ii sheeg. su-aasha 11aad waxay ku saabsan tahay iyaduna sidoo kale waxaa la weydiinayaa kooxda horseed ayaa la weydiinayaa.
sheeg nebi ka mid ah nebiyada ka soo jeeda qaaradda africa nebiyada ilaahay soo dirsaday ee ka soo jeeda qaaradda africa magaciisa iyo waddankii uu ka soo jeedo ee africa kooxda horseed ayaan su-aasha weydiiyey waa ku celinayaa mar kale lusna sheeg nebi ka mida nebiyada allah soo dirsaday waddanka uu ka soo jeedo iyo magaciisa raxiim kooxda horseed iyo kulli waa ka wada tirsanahay aniga kulli waa ka wada tirsanahay okay kooxda horseed aan ka tirsanahay nabiga afrika ka soo jeeda waa nabiyullaahi muuse waa allahumma salli wa sallim calayh ajabti ninkaasu waxaa laga rabaa waa nin macnaha macallin ah oo abwaan ah oo ilaahay maaragtay ii sheega uu murti maaragtay uu siiyey waxaa laynka rabaa ninkaas magaciisa laynka rabaa markii aad dhegaysataan gabayga ou dhammaado inta gabayga ou socdana ma hadli kartaan fadlan magacaygu waa maxamed isaaq anaa u tartamaya kooxda hegan tayo student circle ninkaas magaciisa waxaa la yidhaahdaa macalin cabdullaahi macalin cali بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسكري عمر كوحدة ورسيد عبد الله الشينا إندير الله نقول عبد الله الشينا إندير kasoo qayb galeen waxayna u dhacday si qurux badan oo maamuus leh u dhacday wax yar waxaan saaranaynaa barnaamijka bows aan saaraynaa waan fiikaynaynaa su-aaluhu way sii socon doonaan hadalkuna wuu sii socon doonaa maadaama kula yar uu jiro inaan maaragtay si qurux badan aan u fiikeen barnaamijkii ama aqoon isweydaarsigii aan wadnay su-aalihii aan wadnay ayaan sii wadaynaa markii ugu dambeysay waxa aan qaadanay su-aasha 12 ayay Soomaali wixii dhamaaday waxaan ku sii qaadanaynaa su-aasha ku xigta oo 13 su-aasha 13 in qalin la qaatay laakiin qalin ma artay sheeg afka laga sheegi karaa su-aasha ما يصوروا قلم يصوروا لكن حق الغرة يسووا شيء قلم يصوروا باش كجرا برص سؤال كيمستريا waxay leedahay su-aasha 13 waa su-aal chemistry sheeg calaamadda loo soo gaabiyo biyaha shimiska tekken wax la yiraahdo tekken ahaan maxaa loo soo gaabiyaa maadada ay biyuhu ka kooban tahay marka la isku daro maxaa loo soo gaabiyaa waxaan rabaa arday hore yimaada qalinka qaarta sabuuradda dagaalkaas ku qora aamus ceeb waay mikibro aamus magaalada uu ku dhashay iyo gobolka adigoo cadaynaya xasan sheekh maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waxaa la Cabdi Muuse Maxamed una tartamayo kooxda Hegan Tayo Studio Circle madaxweyne xasan sheekh maxamed wuxuu ku dhashay gobolka Hiiraan magaalada Bulburta magaalada Jallaqsi magaciigana waa Sikri Umar 15 su-aasha 15 sheeg suuradda quraanka ka mid ah ee hal mar soo wada degtay iyadoo dhammaystiran waaye waxaan u tartamaa horseed studio circle suuradaasna waa suuratul ancaam iskale waana su-aasha 16 waa maxay
asal madoorshaha isku dhufashadu waa magacaygu waa cali sheekh doon kulmiye anigoo ku tartamaya kooxda horseed kooxda heega waa qalday studio circle waxa weeye asal madoorshaha isku dhufashadu waa hal kooxda horseed waxaad sheegtaa ardaygii ugu dambeeyey oo ka qalin jebiya tayo studio circle isagoo soo qaatay shoor kurtiga ardaygii ugu dambeeyey maalintii ugu dambeysay soo qaata waxa iskale kooxda horseed ayaa iskale waa su-aal saynis ah waa maxay waxaana la weydiinayaa kooxda heegan waa maxay biology ama biology maxaa loola jeedaa heegan tayo studio circle haddaan isku dayo biology waa barashada nolosha su-aasha 19 oo sayniska si fiican u yaqaana oo qalinka qaata saxweynayno waxa waaye waa su-aal ka hadlaysa arrimaha gobolada banaanka ka ah wadankan iyo aan joogno waxaa lagu leeyahay sheeg 3 wadahooda ay isku macno yihiin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed xuseen cabdi waxaan u tartamay kooxda heegan tayo studio circle saddexda caasimadood ee magacooda isku macnaha uu noqonayo waa New York, New Delhi oo Addis Ababa. Very good. Addis Ababa oo aan darisnahay anta kelmadeyda waxaan inta hadaan meesha fadhiyo mid baan soo diyaarsaday jeebkayga intaan meel tagay aan qaxwo saan u cabaaya isugu daldalay koobkii saddexaad markii aan marayo waagu ibri markaas waxaan isdhaa almost isugu ka toosanta halkaan ay Saciid baa ku durduriyay marka mid kale inta iga soo baxday marka maxay la taabtay inta qaataa mise tii kafeega loo isku helaysaan aad u soo gaabinaa aadna u mahadsantiin waxaan mid walba waxaan ka soo dafaya wuxuuna ku saabsan yahay kelmadeydu waxaan u malaynayaa inaad isku dayso inaad dhuuxdaan idinkoo inagoo cuquusheena furayna idinka haddaan dhaho moogta waa aflagaadhowa sababtoo ah intaan idinla hadlayo casharka ugu tirada badan anaa qaadanayo waa inaad ogaataan taas waxayna baraysaa aadaabta wax kala kororsiga ayna baraysa wuxuu khuseeyaa fikirkayga maanta kelmadda la yidhaahdo waxaa la dhahaa hogaamin iyo maamulid maamule iyo hogaamiye maalin dhaweed baan buug helay aan idiin warramay buugaasaan kasoo akhristay marka tiiban waxaan rabaa inaan exercise ku sameeyo si ay maskaxda u fadhiisato xaqiiqatan waxaa intaba waa meesha iiga muuqdeen marka waxaa taasaan rabaa inaan uga faa'iidaysto tayo studio circle waan xasuustaa Saciid waagi uu bilaabay waxaa laga yaabaa aniga laftirkaygu marmarka qaar inaan dareemo sida ay maankaygu u gaabnaa sababtoo ah maankayga uma soo rarin markaanu kulanu yiri waxaan rabaa dadka inaan ka caawino theory-ga uma rarin 2014 waxaan ku wareejiyay 2010 meelahaas uu ku wareegay maankaygu laakiin hadda waxay ugu dhalatay inaan 2020 aan u sii raro way fahamteen soma marka taasna waxay i bartay waxa la yiraahdo hogaamintu waxay tahay hogaamintu sideedaba waa sahmin waa garanaysaa soma inta reer baadiyaa garanaysa sida anigoo kale xoolaha markaad rabto meesha ay abaar noqoto ama ay yaraadaan daaq uu yaraado waxaa la sameeyaa in la raro oo meel loo raro kale oo ku habboon oo ay geedu dihin yihiin ama geedaha aan horey loo cunin sahankaas waxaa ka mid noqon kara geedaha waxaa ka mid noqon kara gabaadka wax la yiraahdo tusaale ahaan inay markii roob uu soo doo meesha xoolaha la gelin karo haddii uu soo doo oo kaleeto sahankaas marka qofka raadinaya ayaa waxaa la yiraahdaa hogaamiye innaga waxaa laga yaabaa in badan inay isaga keen qaldan tahay hogaamiyahaas marka waxaa ku dhalanaya fikirka ah natiijada kasoo bixi doonta in la sahmiyo tusaale ahaan sida ay u noqon doonto 3 bilood ama 9 bilood ka bacdi siday meeshaasi u ekaan doonto waxa kulli faaqsan oo marna ka harin way jiraan dad kulansi ma taqaan dad wada leh waxa kale oo jira wax la yiraahdo maamuluhu wuxuu maamulaa sidii reerka loo rari lahaa waa taqaani soma waa in aqalka la furfuro waa in waqti la keeno ama xataa sida xagaabaha kale waa in alaabtii la xirxiro ka bacdina lagu raro laakiin tan soo xurdo kicil ka warama
marka qofna ma noqdo wuxuu jecel yahay oo wuxuu noqdaa wuxuu caadaystay inuu sameeyo oo wanaagsan kow marka waxaan idinkala dardaarmaa caadada wanaagsan waxay rabtaa aato caado kastoo wanaagsan inaad ka dhigato inaad samayso waajib ka dhigato midda labaad oo idinku dara waxay tahay waxaa jira shay waxay dhahaan dadkan waxaan dadkan waa qorteen taariikhdeeda qorteen dad wax annaga uguma horreyno horta taas ogaada dad bad ku dhammaada annaga uguma horreyno dad malay bad looga dhig raashiin annaga uguma horreyno dagaalka labaad adduunka markii laga soo qaxay jabaan waa ogdeen hiroshima iyo nagasaki markii ku dhacday waxay ahaayeen adduunka dadka ugu faqrisan 80 waxay ahaayeen adduunka dadka ugu taajirsan why markii aan nala dilin kelmadda labaad idinku xijina waxay tahay waxaa jiro wax la yidhahda proactive iyo reactive soomaaliduna waxay dhahdaa nina garashuu leeyahay nina garaacashuu leeyahay kuna maba soo hoyda baan camal marka waxa waaye proactive waxaa la yidhahdaa malaayan dabana aniga markaan biyihii dul tegay aan waxaan arka malaayga socda gacantaa la aada ma soconayso koo kale xagka arkay ulo wata ushaan soo qaatay ma fiirin marka hore xag inuu xiran yahay marba shayaan soo xasuusanaa markaasaa waqti qoraxdii igu dhacday malaayga baan ugu daban marna waxaan keenay maqaalintii marna ushiyaan keenay waxaa waaye indhihii markaan ku arko unbaa wixii soo raadinaa proactivena waxaa la yidhahdaa ninka marka hore ka tajiro war aniga waxaan u socdaa meeshaas maxaa iga imaan kara dhibkaas maxaa iga imaan kara dhibkaas maxaa iga imaan kara dhibkaas ee ka leexdo bridgetkaas ka leexdo asagoo wax qorshaysiin marka aniga waxaan idin dhihi lahay waddankan jaaniska ugu fiicna wallaahi jiro nin kasta oo soomaali ah wax alla waxay rabtaa samayn karta nin adduunyada ka horeyna ma jiro niyaddaas ku saxda waa maasantihiin aad iyo aad macalin farax u mahadsan tahay maxamed iyo xuseen oo runtii abaal badan macnaha